waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii isku xirka bulshada. barnaamijkeena ku soo qaadanaya kulan balaaran oo ku dhex maray magaalada Nottingham Soomaalida ku nool iyo qaar ka mid ah maamulka dawladda hoose ee magaaladaasi oo ay ku weheliyeen musharaxiinta doorashada soo socota u taagan xisbiga Labour-ka. kulankan oo ay ku kulmeen Soomaalida Nottingham iyo qaar ka mid ah maamulka dawladda hoose ee magaalada Nottingham oo ay ku weheliyeen musharaxiinta xisbiga Labour-ka ayaa ahaa mid si weyn loo soo agaasimay, waxaana kulankani suurtageliyay inuu qabsoomo East African Education Center. waxaa ka mid ahaa ka soo qaybgalayaashii kulankani dhanka dawladda hoose ee magaalada Nottingham, Councillor Xasan Axmed, Councillor John Colin iyo dhanka musharaxiinta doorashada soo socota ee xisbiga Labour-ka oo ay ka mid ahaayeen ka soo qaybgalayaashii xafladdan Councillor Marlita Brian oo mar labaad u sharaxan doorashada soo socota iyo Asad Jodari oo isna ah musharax u taagan doorashada soo socota ee dhawaan dhici doonta. Tuulinta dawladda hoose ee ka tirsan xisbiga Labour-ka Nottingham iyo musharaxiinta cusub oo ka hadlay goobta kulankani uu ka dhacay ayaa soo hadal qaaday waxqabadkii dawladda Labour-ka, iyagoo sheegay in haddii mar kale la doorto musharaxiinta xisbigoodu ay wax weyn u qaban doonaan. bulshadii Soomaalida ee ka soo qayb gashay kulankan ayaa su'aalo dhowr ah weydiinayay mas'uuliyiinta xisbiga Labour-ka, waxaana halkaasi jawaabo kala duwan ka bixinayay mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay, waxaana goobta uu kulankani ka dhacay la isku dhaafsaday afkaar kala duwan. dhanka Soomaalida ayaa waxaa shirkani ka soo qayb galay inta badan qaybaha bulshada Soomaaliyeed ee magaalada Nottingham, culimada, waxgaradka iyo dhalinyarada oo ah mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed, waxaana dhabantood halkaasi ka muujiyeen sida ay ugu qanacsan yihiin waxqabadka guud ee community-ga East African Education Center uu had walba ugu heelan yahay Soomaalida Nottingham ku dhaqan. dhanka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nottingham ayaa kulankani lagu guddoonsiiyay shahaadooyin, waxaana goobtaasi ku guddoonsiiyay shahaadooyinkaasi mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay kulankani, taas oo dhiirigelin weyn u ah guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed. uu dhamaaday kulankii ballaarnaa ee Soomaalida Nottingham iyo qaar ka mid ah dawladda hoose ee Nottingham ay ku kulmeen ayaa waxaanu la kulanay maamulka East African Education Center iyo qaar ka mid ah waxgaradkii ka soo qayb galay kulankaasi ballaarnaa. ugu horreyntii waxaanu wareysi la yeelanay gudoomiyaha East African Education Center Sheikh Maxamed Cabdiraxmaan oo hadalkiisii ku bilaabay sida tan: bismillaahir rahmaanir rahiim. mahad ilaahay iska leh. waxaa munaasabadan oo lagu qabtay ay qaban qaabisay East Africa Education Center sharaf u ah inay soo dhaweyso website-ka washaq.com. gudoomiye Sheikh Maxamed wax ka weydiinay waxa uu kulankani ku saabsanaa iyo cidda ka soo qayb gashay kulankan ballaaran. runtii shirkan wuxuu ku saabsanaa waa shir ay soo qaban qaabisay East African Education Center. ujeedadeena wuxuu ahaa in mataqaanaa bulshada Soomaalida ee degan Nottingham iyo dawladda hoose gaar ahaan kansalarada ka soo qayb galay shirkan in ay isweydaarsadaan aqoon iyo mataqaanaa maslaxadda labada dhanba si mataqaanaa horumar loogu gaari lahaa magaalada Nottingham bulshada degan waxna loogu qaban lahaa. muhiimadda ugu weyn waxay ahayd in isbarasho iyo mataqaanaa ay dhexmarto labadaba dhinac. martida ka soo qayb gashay kulankan waxay wada ahaayeen dad dawladda hoose u shaqeeya, waxaana ka mid ahaa Councillor Axmed Xasan oo ahaa nin mas'uul ka ah City Council-ka, John Colin oo asagana ahaa nin mas'uul weyn oo ka mas'uula City Council Nottingham, iyo laba murashax ah oo hadda u taagan inay mataqaanaa isu soo sharaxaan as a councillor, waxaana ahaa Asad Jodari iyo Marati
Brian gudoomiye Sheekh Maxamed oo aanu wax ka weydiinay ujeedada ay shirkani ka lahaayeen iyo waxyaabihii ay isku afkarteen maamulkii dawladda hoose iyo musharaxiintii ka soo qayb gashay shirkani ayaa yiri sida tan runtii waxa ugu muhiimsanaa dad badan ka soo qayb galay ujeedada ugu weyn anaga aan lahayn waxay ahayd dadkaas iyo madaxda matalaysa dawladda hoose inay isdhaafsadaan aragtida iyo wada shaqaynta ka dhaxayn karta bulshada Soomaaliyeed ee degan Nottingham iyo kansalarka iyo sidii loo wacyigelin lahaa bulshada Soomaaliyeed ee degan Nottingham waxaan ka wada hadalnay horumarka aan u baahanahay inaan gaarno waxa kaloo aad loogu mataqaanaa loogu guwaabiyay in mataqaanaa ay ka qayb galaan dhalinyarada degan Nottingham ay ka qayb weyn ka qaataan sidii ay mataqaanaa maamulka dawladda hoose ay ugu mid noqon lahaa runtii shirku wuxuu ku dhamaaday guul waxyaabo badan aan isku afgaranay baahida bulshada Soomaalida degan Nottingham dhinac kasta ayaan ka tusnay haato xag waxbarashada xagga mataqaanaa deegaanka xagga mataqaanaa caafimaadka baahida Soomaalida waxa waaye meeshaan ka muujinay ayagana waxay ballan qaadeen in ay awoodooda iyo xoogooda saari doonaan sida horumarka mataqaanaa magaaladan ay degan yihiin ay ugu horumari lahaayeen bulshada ay degan Nottingham laakiin tan ugu weyneed ee maanta aan gaarnay ee guusha ahayd waxay ahayd maanta in codkeena Soomaalida ay gaar ahaan city councilka annagoo wada dhan oo midaysan aan gaarsiino baahideena sidoo kale waxaanu la kulanay Cabdicasiis Bilaal oo kamid ah maamulka East African Education Center oo ahaana maskaxdii ka dambeysay in kulankani uu qabsoomo waxaana hadaladiisii kamid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah thumma salaatu wassalaam ala rasuulillah horta aad ay mahadsantihiin bahadinan washaqa.com aad baan u soo dhaweynaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku jirta dhinaca miidiyada waayo soo kobcinta iyo soo qaadida ra'yiga iyo wacyiga dadweynaha meel kasta joogan in la maqlo waa arin aad iyo aad loo baahan yahay Nottingham isma lahayn media ayaa ka jirta oo codka Soomaalida laga maqlayo tan waxay tahay yani bishaaro muujinaysa in umadu nooshahay Cabdicasiis Bilaal ayaanu wax ka weydiinay jawiga guud ee kulankaasi sida uu u qabsoomay iyo in xafladdu ay u dhacday sidii ay ugu talagaleen iyo in kale runtii horta xafladan may ahayn xaflad yani aan iska qabanay oo iskaga soo kaaya dhacday oo ku qabsatay oo iska fujima laakiin waxa ay ahayd mid in badan laga soo baaraandegayay sidaad ogtahayba ummad haday meel ku dhaqan tahay ay ku nooshahay runtii waa in ummadu meesha ay ka muuqataa amba ay ka maqnaataa saxada aysan joogin muhiimadu waxa weeye codka Soomaalida ku dhaqan Nottingham in la gaarsiiyo maamulka Nottingham ka jira si berito ay uga qayb qaadato cid maamulka iyo nidaamka ka sameynaysa mustaqbalka Nottingham cidii si joogto Soomaaliyeed anaguna aanu noqono gogol dhigiisi xareeyay waxa way arintaas u si bilaabay runtii xafladu sidii aan ugu talagalnay ka badan ayay u dhacday ka soo qaybgalka intii aan ku xisaabtanay runtii aad bay uga badnaayeen dadku waxay ku tusaysaa baahida ay dadku u qabaan maamul iyo nidaam iyo kala dambeyn waxay ku tusaysaa Soomaalidu inay diyaar u tahay inay wax qabsato runtii dadkii ka soo qayb galay ee maamulka ahaa ee ka socday dawladana waxay aad ula yaabeen dadkan Soomaalida ah inta tiradoodu ay leeg tahay iyo wacyiga ay ku nool yihiin oo ana hore looga ogeyn magaalada Nottingham runtii waxay ku noqotay arin macnaha aad cajiib u ah insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa ballanqaadyada ay sameeyeen inay ka run sheegaan annaguna waan ku dadaali doonaa hadii Allah subhanahu wa ta'ala uu idmo wixii awoodayada ah inaan qabano Bilaal ayaan wax ka weydiinay su'aalaha hay'ada ballanqaadyo uu sheegay inay u soo
bandhigeen madaxdii dowladda hoose ee Nottingham? runtii waa su'aal fiican. ballanqaadida ay sameeyeen waxa weeye in ay maqli doonaan codka Soomaalida oo midaysan. ballanqaadida ay sameeyeen waxaa ka mid ah in ay u ballanqaadaan East African Education Center wada shaqayn joogto ah, in ay diyaar u leeyihiin ciddii wax u qabanaysa dadweynaha Soomaaliyeed inay macnaha dhageystaan, la fariistaan meel kasta joogaan. baahida maanta Soomaalidu ay qabtana waxa weeye mid aan umadu ka indhatirnayn ee la wada ogyahay. far kaligeed fool ma dhaqdo. ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay inay wada shaqaysato. qofka hadduu isagu shaqaysto ee wax qabsado wax loo qaban karaa, laakiin qof aan waxba qabsan, aan waxba tari karayn, cid hore u qaadi karta ama wax u qaban karta ma jirto. marka insha Allah taala waxaan rajaynaynaa wada shaqayntaas ay noo ballan qaadeen inay insha Allah taala ay rumobi doonto xilliga ugu dhow ee soo socda hadii Allah. dhanka bulshada Soomaaliyeed waxgaradkii ka soo qayb galay shirkaasi Ugaas Cabdi Naasir Ismaaciil Weydow oo kaalin weyn ka qaatay qabsoomidda kulankani ayaanu wax ka weydiinay sida uu arko habka uu u qabsoomay kulankani ay soo qaban qaabiyeen East African Education Center. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Maxamed aad baad mahadsantahay. runtii xaflad aad u qurux badan oo aan islahayn أنا كل حساب تمين أيام أركي فهمتي نوتنغهام اسم لها إن صومالي إنت أصلك باجوكتو فهمتي ولا سكو صوب بحي community دا أفريكان فهمتي دلال وين أي موجسي يدو لما فلان ما أنت كم موجسي baahida dadweynaha ama mas'uuliyadda ay u hayaan ummadda Soomaaliyeed. Ugaas Cabdi Naasir oo ka hadlaya sida uu ahaa dareenka bulshada Soomaaliyeed xafladaasi ka soo qayb gashay iyo sida uu ka rajaynayo mustaqbalka Soomaalida Nottingham ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa. runtii aad u faraxsanahay waayo aniga horta sideedaba muddo 2 sano ayaan Nottingham diganahay. London ayaan ka soo wareegay runtii waa markii ugu horeysay aan arko Soomaali saa isku duuban ilmi sportiga oo shahaadooyin la guddoonsiinayo dad ma aragtay sida waxa maasaysan oo madaxdooda iyo mas'uuliyiintooda ma aragtay dadaalka ay u muujiyeen iyo runtii waxaan booran karaaba nimanka madaxda ka maamulka inay isku howlaan waxqabadkoodina maanta runtii ay muujiyeen ayna shacabka ay mas'uuliyadda u dhiibtayna ay maanta u muujiyeen dawladda iyo ayagaba runtii dawladdana ay u aragtay in ummad Soomaaliyeed Nottingham inta leeg ee degan ee hamigooda tiigsanaysa inay mustaqbalka ay jawooyin muhiim ah oo sida dawladda hoose booliiska dhaqaatiir runtii iyo arday aad u fara badan oo ilaa heer jaamacad ah oo meesha aan kula kulmay wallahi xaflad ma aragtay xaflad aad u rajab fiican bay ahayd deelayna waxaan ugu rajeynayaa in dhulka Soomaali maanta haysto ardayda badan oo maanta shahaadooyinka la guddoonsiiyay in ay noqdaan kuwa wax barto oo dalkooda iyo dadkooda ma aragtay wax u qabto maamulka runtii wanaaga sameeyay waalidiinta macalinka quraanka baro iyo macallimiinta xagga iskuulka oo runtii ardayda si fiican u soo dhisay oo maanta meesha aan kula kulmay runtii aad bay ii farx gelisay. waxaana sidoo kale aanu la kulanay mid ka mid ah dadkii ka soo qayb galay xafladani Xamse Cali oo ah xiriiriyaha shirkani ayaa faahfaahin guud ka bixinaya sida uu haajiga kulankani iyo cidda suurta gelisay inuu qabsoomo. والله حفظ هير سر أيه بهاد dadkuna barnaamijkii meesha ka dhacaad ay ugu faraxsanaayeen isdhaxgal iyo wax isweydaarsi iyo isfahan iyo is-afgarad ay ku dhamaatay xafladan guud ahaan waxa soo qaban qaabiyay sida hore aan kugu sheegay waxa soo qaban qaabiyay East African Education maamulkeeda ayaa soo qaban qaabiyay iyo waxa qayb ka qaatay memberska odayaasha dhalinyarada
haweenka iyo odaya iyo maamulka intaba xamse cali oo ahaa xiriiryaha shirkani ayaan ugu dambeyntii aanu wax ka weydiinay si guud ahaaneed sida uu ugu faraxsan yahay kulankani qaabkii uu u dhacay iyo dadka Soomaaliyeed ee magaalada Nottingham waxyaabaha ay kulankani ka faa'iidi karaan. maxaa maanta aad iyo aad aan ugu faraxsanahay muddo 10 sano ka bacdi in ay maanta nasiib u yeeshaan ama organization sida East African Education ay u sahlaan ama u soo qaban qaabiyaan shacabka magaaladan ku degan in ay u yeeshaan muxuu ahaa ishag nasiib in ay codkooda iyo waxyaabaha ayaka ay weydiisan lahaayeen dawladda hoose ay maanta loogu sahlo loona fududay in ay la kulmaan codkoodana gudbisaan waxyaabo badan oo ay dadku magaaladan ku nool ay ka faa'iidayeen shirkan waxay ahayd in marka hore la muujiyo deganaanshaha yani maadaama marar badan la isweydiiyey Soomaalidu ma ku nooshahay magaaladan mise ma ku noola questionka meeshaas jiro ahaa 10 sano la soo dhaaf laakiin maanta wixii meeshan ka dhacay wuxuu ahaa inay magaalada Soomaali ku nooshahay kaliya ma aan ka qayb qaadan karto nidaamka iyo systemka wadanka ka jiro xaqna u yeelan karto go'aamada wadanka ka dhacay meesha waxyaabo lagu muujiyo ugu weynaa taasay dadkuna aad ugu faraxsaneen guud ahaan kulankani oo ahaa mid si weyn ay ugu riyaaqeen Soomaalida ka soo qayb gashay shirkani ayaa ah mid dhiirigelin buuxda siinaya Soomaalida ku nool Nottingham inay ka qayb qaadan karaan fursadaha waxqabad ee ka jira Nottingham waxaana kulankani la dhihi karaa waa mid horseed u noqon kara isku xirka bulshada iyo dhiirigelinta Soomaalida Nottingham. Istiyaal waxaa la soo gaaray gabagabadii barnaamijkeena isku xirka bulshada waxaa dhanka soo diyaarinta igala qayb qaatay Ibraahim Axmed Jaamac waxaana idin la socodsiinay toddobaadkan anigoo ah Maxamed Aar tariyo mar kale intaynu dib ugu kulmi doono mid la mid ah barnaamijkan waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabad gelyo.